بسم الله الرحمن الرحيم وصباح نما أحدها لبدا بيشا نوفمبر سنة كاللبكن لباتن يشن أو كوبهجن كوبية طبانك بيشا جماد الأول سنة كن أفر بقول فرترية تضبا تاريخ ذي هجرية كسو دوادا مركله إيه برامجكي حرشة وراركا قضبدا ساكا برامجك آن إذن كوها إننا وحا كمدا ترام أو دقال ugu hanjabay Nigeria isla markaasna sheegay in uu diyaar u yahay inuu ciidamo u diro dalkaasi isagoo dhaliil baan u jeedinaya dawladda Nigeria haddaba maxay tahay sababta ka dambaysa arrintan warbixin ayaan idinkaga haynaa Hamas oo war culus ka soo saartay xadgudubyada Israa'iil ay ka wada Gaza ee lidiga ku ah heshiiska xabad joojinta ee la gaaray bishii hore maleeshiyada RSF oo kordhisay weerarada ay ka wado gobolka Kordofaanka Koonfureed iyadoo gudoomiyaha Darfurna wacd uu ku maray in dagaalku uu soconayo ilaa iyo dhulka oo idin la xoreeyo Mareykanka ayaa si adag u cambaareeyay weerarada xasuuqa ee RSF ay ka geysatay magaalada Al-Fashir weerar toorey loo adeegsaday oo khasaare sababay oo ka dhacay dalka Ingiriiska madaxweynaha Suuriya oo Washington u tagaya in uu la dagaalamo kooxo horay uga mid ahaa dhammaan wararkan iyo weliba warar kale oo faahfaahsan iyo wixii warah ee soo kordha intaynu hawada ku jirno ayaan idinkugu soo gudbinaynaa barnaamijka xulashada wararka internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah Imara Luxury Homes mar haddaadan Imara guryaha ayaal kumayso in ka iibsanahaynood intifaacsan karayn ma adaaba adduunka raaxadiisaba eegay dhismayaasha cusub ee Imara Luxury Homes waxay ka kooban yihiin 2 qol iyo fadhi 3 qol iyo fadhi 4 qol iyo fadhi iyo guryo dublekisa iyo kuwo penthouse ah guri kasta waxa uu leeyahay qolkii shaqaalaha waxaana loo dhammaystiray wax kastoo xaafad gaari ah ay u baahan tahay waa 2 dhismo cusub oo labadaba gacanta lagu hayo dhawaanna soo idlaan doona dhismaha koowaad shirkadu waxay ka dhisaysaa xaafadda Backland City Park Drive 6th Avenue waxaana ku dhow yahay isbitaalka Aga Khan dhismaha labaadna waxa uu marayaa dabaqa koowaad waxaana ku yaala Kilimani wadada madaxtooyada ama State House-ka ee Deansbury Road faafahin dheeriya la xiriir ciwaanada iyo telefoonada shaashada kaaga muuqda soo dhawaada marka la daawadayaan si aad ula socoto oo hesho wararka barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan ka soo gudbinayno haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada amaba horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir وعندنا كم هسنتهين داوشة برنامجك ساكا وحين كوبلا بينا علادا ودك السودان أو وركنا دوان آن ذيك جهينه وحن كهر مرينا وركي قدام بيجي هل كاسي أو لجوسا ورميه إن لبيه طبعا قف لجود لي تركنا لجودنا وعي وررعي ذا ماذا جرمة كدق دجاه لو يقانا RSF أي كوقادين حريحة بركة عياشة قبلك كردفان تكونفريد sida ay sheegtay shabakada dhaqaatiirta ee dalka Suudaan shabakadu waxay faahfaahisay in RSF ay duqeysay xarunta ururka caalamiga ee socdaalka ee magaciisa loo soo gaabiyo IOM ee magaalada Kadugli taas oo sababtay dhimashada 5 caruur ah sidoo kale waxa ay tilmaamtay in RSF ay beegsadeen xerada barakacayaasha ee deegaanka Al Abasiya ee gobolka Kordofaan Koonfureed halkaasi oo 7 qof lagu dilay waxaana kamid ah haween iyo caruur ciidamada dawladda Suudaan ayaa dhankooda sheegay in duqeymo xagga cirka ay ku aqaadeen saldhigyada RSF ee waqooyiga iyo galbeedka Kordofaan gudoomiyaha gobolka Darfur Mini Minawi ayaa ku celiyay in cadaalad la marsiin doono kuwii ka dambeeyay dambiyada ka dhacay Al-Fashir wuxuuna sheegay in dagaalku sii socon doono ilaa dhul kasta laga xoreynayo RSF dhinaca kale afhayeenka isbahaysiga ay hogaamisa RSF Alaa-Diin Naqdi ayaa si adag u beeniyay eedeymaha ku aadan in ciidamada RSF ay ka wadaan dilal qowmiyadeed ama xasuuq Al-Fashir isagoo sheegay in warbixinada qaramada midoobay ay yihiin kuwa waxyeello leh isla arrimaha wararkan la xiriira Mareykanka ayaa lagu soo waramayaa inuu si adag u cambaareeyay xadgudubyada waaweyn ee RSF ay ka geysatay Al-Fashir
wuxuuna ku baaqay in si degdeg ah loo joojiyo dilalka iyo colaadda ku salaysan qowmiyadaha. wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa shaacisay inay aad uga walaacsan tahay xaaladda dadka rayidka, iyadoo ku boorisay labada dhinac waa RSF iyo ciidamada dowladda in lagu noqdo wadahadal siyaasadeed maadaama uusan jirin xal ciidan oo suurtagal ah. in ka badan 10,000 oo qoys ayaa ka barakacay magaalada Al-Fashir hal maalin oo kaliya, iyadoo hay-adaha gargaarka ee caalamiga ah ay ka digayaan in dagaalku sii socon doono, taas oo sababi karta barakac baasan oo ku wajahan xadka Jad toddobaadyada soo socda. dagaalka u dhexeeya ciidamada dowladda Suudaan iyo kooxda RSF ayaa socday tan iyo 15 Abriil 2023, mana jiro dadaal dhanka diblomaasiyadda oo ilaa hadda suurta geliyay xabad joojin waarta, iyadoo dadka shacabkiyahana ay sii wadaan in ay noqdaan kuwa ugu badan ee dhibaatadu ay saameynayso. imikana Britain, wararka ka imaanaya gobolka Cambridgeshire ee dalka Britain ayaa waxay sheegayaan in dhowr qof lagu weeraray toorey gudaha tareen ku soo jeeday magaalada Huntington. tareenka ayaa si degdeg ah loo hakiyay iyadoo booliiska iyo ambulance-ku xalay oo idil ay halkaasi gaaf wareegayeen. booliiska ayaa xaqiijiyay in 2 nin la xiray kuwaasi oo lala xiriirinayo weerarkan. faahfaahinta ku saabsan aqoonsigooda ama ujeedkooda weli lama shaacin. hay-adaha gurmadka caafimaadka ayaa sheegay in dhowr qof loo qaaday cisbitaalada, balse weli lama caddayn tirada saxda ah ee dhaawaca ama heerka uu gaarsiisan yahay. dhacdadan ayaa weli la ogeyn haddii ay jiraan dhimasho, waxaana xaaladan lagu sifeeyey mid degdeg ah oo wadata cabsi ku fidaysa bulshada, iyadoo lagu soo warramayo in dadkan safar ay ku jireen markii la weerarayay. ra'iisul wasaaraha Britain Keir Starmer oo ka hadlay dhacdadan ayaa ku tilmaamay mid argagax leh oo aad u walaac gelinaysa bulshada. wuxuu sheegay in falkani argagax leh uu ka dhacay tareen ku dhow Huntington oo ah wuxuu yiri waa mid si weyn looga murugoodo.